soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal meel walba aad joogtaanba aad baan idin salaamayaa waa walaalkiin Abuukar Cawaale Qaadiid ismaciil faray aad baan ku salaamayaa saaxiib qadar aad baan ku salaamayaa Axmed Ciise dhamaantiin idin lama kala gaaro aad iyo aad baan idin salaamayaa meel aad joogtaan guul iyo gobonnimo aan idin rajeynayaa insha Allah maanta waa maalin weyn alxamdulilaahi rabbil caalamiin wada socotaan war la qaba xiisa ma leh oran jireen dharbaaxadii Kenya ku dhacday maanta yaa wajiyadu awalba iyagoo qurux badnay maanta iyagoo saa u hoganaya qabuuru mujur waaye bay ka dhafay yaa oo dalkoodii aadeen alxamdulillah waa one step waa hal talaabo oo loo qaaday dhinacii guusha ilaahay baa hadda iska leh xaqu mar walba waa guuleystaa sida la socota waxa laga yaabaa dad hadda soo kaco Canada iyo meelahaas jooga warbaahin inay jiraan quick update baan idin siinayaa maxkamaddii waa dhacday Kenya waxay ku doodeysay asaaska dacwadeedu ahaa laba wadan oo daris ah oo memorandum of understanding oo wada hadla oo raba inay boogahooda dhaydaan oo East Africa isla ah oo wax badan ka dhaxeeyo baanu nahay sababta awgeed noo daayay anaga heshiinaynay xeer ilaaliyu wuxuu yiri dacwadii hore markii la furayay ma hirgelin uma aha Africa oo dhan hadii labadii isqabsataba la dhaho Europe baa la idinkaga garnaqayaa ICJ taga horumarka Africa dan uma jirto saas ee anagu aan arrinteeda dhamaysano sababtaas awgeed bay dhaheen maxkamadda ICJ jurisdiction ama xaq ma laha inay gartaan bagashaba waxayna sal uga dhiganayeen memorandum of understanding kii warqadii ahayd in wasiirku saxiixay Cabdishakuur ra'iisul wasaaruhu loo ogaa warqadaas maanta doodii Soomaaliya oo ahayd warqadaas waxba kama jiraan sababtoo ah baarlamaanka reject gareeyay oo aan ansixin waa laga diiday maxkamaddu way ka diiday dokumentigan waa dokumenti sax ah waayo warqadda gunaanadkeeda kuma qorna waa in dokumentiga la marsiiyaa baarlamaanka markaas uu dhaqan gali doonaa ee waxa ku qoran these documents wuxuu active noqon doonaa oo sharci noqon doonaa oo legitimate noqon doonaa marka wasiirku saxiixo oo ah dheedkii uu wasiirku saxiixay sababta awgeed bay dhaheen oo dokumentiga kuma aysan jirin memorandum of understanding kuma jirin markii baarlamaanka la marsiiyo ayay warqadan sharci noqon doontaa soo arrintaas bay ku lahaayeen laakiin warqadda laguma sii qeexin baa la yiri badda Soomaaliya sida loo qaybinayo xadku intuu noqonayo wada hadal inuu fumay bay ahayd sababtaas awgeed warqad miisaan qarna ma goyn karto maxkamaddu waa iyadii go'aansatay go'aankii Kenya oo ahaa kow inaysan maxkamaddu jurisdiction oo ahayn waxa la yiri rejected waa diidnay xaq baan u leenahay 1984 bay Kenya iyo Soomaaliya saxiixeen in ay ka mid yihiin ICJ conflictigooda iyo wixii soo kala gaarana maxkamaddu ay geli karto 11 baa ka codaysay arrintaas juuriga ahaa hal nin oo Kenya u codeeyay ma ahane inta kale waxay u codeeyeen Soomaaliya for that reason waxa la yiri xukunka Soomaaliya iskale maxkamaddana dacwadu way furmaysaa dacwadii Kenya ay wadatay oo ahayd in laba luuq hoostooda ay wax ku dhameystaan dawladda cusub sugaan madaxweynaha kala arkaan wuxuu noqon doono hadii uu mid kala yimaado jiran la galaan wax cun sameeytaan intaasna ay sii socoto la sii qodo maanta Kenya laga bilaabo maanta oo xukunku dhacay baddaas waxaa loo yaqaanaa conflict zone sida ay maxkamadda xukuntana cid badeel ciido kor uga qaadi karta ama wax activity oo ka soo ma jiraan وأقول darada Kenya ku dhacday Soomaaliya hasay yeeshe kiiska hadda la gali doona it'll take another year maybe sanad kale inuu qaato insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono su'aasha isweydiinta laha waxay tahay hadda dacwadii baa bilaabanaysa Kenya waxa ku cost gareynaysa millions of dollars inay dacwadan wadaan oo maintain gareeyaan Soomaaliyana sidoo kale waa halkaas meesha aan qaad ka soo gelinayay dacwada Kenya la ku haysta dhaxalkii caruurteena ka warrama haday Soomaalidu lacagta ka bixiso maxkamadda oo ay Kenya maxkamadda badda nala tag na dacwee badda
guriyeyso wixii qarash kaaga baxa legal costigana annaga Soomaalida bixinayna bal aqligaas ka warramo aqul me ka fakara macquul waa yahay sababtoo ah haddii maalin walba 4 diyaaradood naloo sararo oo intaasoo dollar malaayiin oo dollar estimate-kii ma haya hadda figureskii dhowr mar baan shaaciyey muqdisho kaliya 420,000 ee day 420,000 oo dollar baa maalinkii kaliya muqdisho ka baxda hargeysa Somaliland oo dhan 1,800,000 ka baxda ya Puntland 700,000 miyeed baa maalinkii ka baxda haddii la dhaho كاين الكوستي يقرق uga baxay badda iyo hoggaan iyo halaagan iyo dhaxalkii caruurteena oo ay rabeen qaadato waxaan ugu bedelaynaa inaan daaqno cawska iska cunno qashinkaas loo dadiyo miyaanay haboonayn in la dhaho Kenya badda faraha la bax qaadka wajin oo la fahma siyaasadda Kenya waliba hadda doorasho ku socota ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuu cod ka rabaa gobolka Meru oo qaadka u baxa haddii sababtoo ah siyaasadda government oo Uhuru Kenyatta wata awgiis faraha laga baxo waxaan joojinaynaa qaadka haddii la dhaho Kenya mar horeba haddii la dhaho waxay oranaysaa waa iga baxayn ka soo galo marka waxyaalaha ku dhaxal carruurta inaanu dhaaro wixii legal cost ah oo ku baxa arrintaas annaga bixin housekiina daaqayna daroodina ya dollar baa soo dirayna maalin walba idinkuna badda idin geeysta balad aawad ka dhisa si walba noo sameeyay Soomaaliya inuu kor u kaco insha Allah ana soo socotaa rajaduna way fiican tahay and I apologize internetkayga waa low baa leeyahay meesha aan ku jira miyaa ma aqaan ya mise telefonkayga all ah Samsung xuno waxaan wataa S6 ya marka khayr badan idin rajeenayaa I'll try inaan qadka soo hagaajiyo soo noqdo inta ka horeysana waxaad leeyahay bal in case kan baddu socdo ragga qaad cunow idinkama quustay qaadka badda oo caruurtaada xalka qaadanayo kostiga ka bixine iska joojiye qaadka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.